dadka badhba fulanima hayda arma dadku kula yaabaa arma si xun lagu eega arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjiz marnaba ha caajizin wixii tegay waxba kama bedeli karo ilaahay wuxuu tilmaamaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto in allaha kaana caliiman xakiima wale waxaad ka calaacalis waxaaba laga yaaba in khayrku saa ku jiray wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum ha odhanin bal ma haddaan sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaasaan noqon lahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaas oo salli intuu ku seexday salligii uu ku sawiran yahay calaamadihii adduun salluu kaga jiifaa maaha inuu adduun waayo saxaabadu iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhti aanay waxaysanin iyo wakhti ay waxaysteen labadaba waa soo maray laakiin adduunkan marnaba qalbigooda gelin ee gacantooda ku jiray rabbigii inuu weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo qalbigiisa xasila adduunkaan warwar ku haynin waxa dhacayaan dhib ku haynin arsaaqda intuu helaabuu qanaaco ku qabaan adduunyadaynu joognoo dhammi qiimo badan uma samaynayso aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horu mariyo aqoon-yahan maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooyaa haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo sida lacag lagu helaa walow badda ku dhacnee qiima male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidha leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanayso maxaad u nooshahay nolosha sucuubaad bay leedahay waa daali kartaa mushkilad baa kaa hor iman kartaa waxaasi laakiin waxaa loo baahan inaad ka dilgoodo waxaa loo baahan yahay daaqaadkii kugu kaydsanaa inaad dib u adeegsato waxaa loo baahan yahay inaad isdhiibin nolosha isdhiibkaa ku liita waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caqil baa jiraysa kaa hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'asiraad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee mumaatirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan balleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 14 iyo 20 batee taagnow ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaa baad joogtaa iyo aduu afrikaan baa tahay iyo kabaad tahay iyo cajami baa tahay waxaas waa sheeko haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaalkii lalahaa maxay hal hortii baad jabaysaa daaqada alla ku siiyey ilaahay uga mahad celi subxaanahu watacaala iskuna day inaad adeegsato waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa midkuska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inay noloshii xaqiiqada ahayd aragda taasaa waxay keentay markaasi in daaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamma ay cadilanto taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu israacno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jibinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inugu xidhan yihiin awooddii iyo daaqadii allayna siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inugu xidhan yihiin إلهي ارتوفينا ليه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عوردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل كيسو وحو قادي وح عجز قليه ملايكته هذا آدم إنه كيسو مرض نصري مالك لك ماضيما علماء ديني تستي داد خوارق العيدة وقار وطين قار وميل قار اللي قسميه أنا حين saynisyahanada iyo aqoon-yahanada maanta jooga dunida la leeyahay cirkay wax u diranaya halkan marka baxeenna inaanay dad gaara ahayn laakiin waa dad ku qancay
in ilaahay awood uu siiyey ay ka faa'iidayn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan waxuu awoodi karaan nalkana arkaysaa ninkii bilaabay waad 99 jeer markuu ka bixiyey markunaadkiibuu u baxay ismacuun laambaduu rabay inuu shido oo cilmigii barigaa bilowga ahaayee waday waa wadaa waa bixi weydaawo waa ku soo noqdaa waa wadaa 1000 marra buu ku shiday bay idhaahdeen markunaadkiibuu ifiyey dawaynagaa weli ifisanayna laambadaa dunida nin baa gami waayey uunoo ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashana baxda mooyaane dabeetana markuu gami waayey inbay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhammina waa taa wada laambada noqotay hadna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waayey soomaalidu waxay idhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaa bay idhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefkaa geela weyn hogaamiya marka aakhirubu xooggiisa arkaa bay idhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awooddii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacala in adduunka arkari weyn ilaahayna wayna leeyahy subxaana wa tacaala wafii anfusikum afalaa tubsiruun wafii anfusikum afalaa tubsiruun ma yaraantunbaa lagu bilaabaa maya azhar a'immadeedii nin ka mid ahaa 54 jir buu ku bilaabay wax qorista waa imaam alakbar lilazhar laakiin 54 suu magaalada isaga joogay markuu 54 jir marayey ayuu yidhi niyamaad waxbaratid horta wakhti badan baaba kaa lumaya waa bilaaba azhar buu soo galay dabeetna waa soo waday waa soo takharrujay imaamul azhar isagoo ah buu dhintay 9 jir da'diisuna marayso yani wuxuu aaminsanaa awoodda iyo daaqada ku jirtaa inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa dee innaga waa laynaguma eegin waxa layna yidhi waxba lama baran karo waxa layna yidhi waxba lama qaybi karo waxa layidhi waxba lama noqon karo saa daraaddeed baynu waxba noqon weynin waxaad u baahan tahay daaqada alla ku siiyey subxaana wa tacaala inaad ka mahad celiso cidda aan la hadlaya maanta maaha dhallinyaro way dhallinyaradu hadday soo bilaabayaan fursaddii bay haystaa waa da'da roobroor ee isle wakhtigiiba idin dhaafay war habeen idinkama tegin si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay haddii aynu iska reebno kaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhriyi karo waxba lama baran karo wax waa sacab waa in hortijabayay taasi waxa loo baahanya markaa inaad tidhahdo waan qaban karaa waan qaban karaa waan qaban karaa nolosha ma jiro wakhti firaaqa layahay waayo noloshu wakhti firaaqaaba ma leh mar kasta hawl nooca unbaa ku haysataa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyadaa baatilka kugu mashquulinaysa adigu shughulba waayi maysid mar haddaanad shughul waayin in adigu shughulka xadhee shughulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaa soo fulo ahmiyad kuu kala leh oo biryaro kuu kala fog waxaad u baahantahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigta iyo waxaasoo dhan inaad ilowdo aad hore u socoto ilaahay wuxuu ina siiyey subxaana wa tacaala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna markaa lagu miisaamo bay idhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay idhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintii kiilo iyo waxoogaa yar bayaa maskaxda kugu jirtaa haweenkana bay idhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weynay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad ogsijiin neefsato oo dhana dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cuntaa maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyaa maskaxda inugu jirta waxay idhaahdaan 22 desimitir desimitir kama taqaanay sentimitir ma aha hoos uga sii kac desimitir 22 desimitir oo murabbaca yacni square ah 22 desimitir intuu leegyahay samwat meelahan buu leekaanayaa waa wax aad u yar 22 desimitir oo square oo maskaxda bini'aadamkaa ka midi bay idhaahdaan waxay qaadi kartaa bay dhahaan 20 milyan oo volume ama buug inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa legaad wadato waa 22 desimitir in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan أحد العلماء وبروفيسور كالإعلام مارك روزنزن وكم إذا علماء مسكية دراسية في جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هديبوا يريد مسكحة بني آدم مالين كستا
10 معلومات في الثانية الله شيء قبولي سكن كالتقبل شيء هدي الله شيء قبولي سكن كوال برقتي هل كان بالنسبة لي سكنها سكن كستامة ثانية كستوء كمدا نوش قطة هدي الله شيء قبولي طبعا شيء طبعا معلومة الله شيء مدل إحدى الصنادات القوة حبين إيام مالنتون لك لجوجين باقياتا سكن كستا طبعا بالو شيء شيء إحدى الصنادات بانا القوة ضيا حبين إيام مالن بنا القوة آخرين وحليه معلومات كاتي مسكحة بني آدم كمبروحين إياه 1 على مليون من حجم العقل بليه سدرات بي waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awood aan la siiyay maba isticmaala bay leeyihiin 10% mooyaan boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay daaqada inta lagama awoodda inta laginaynu cadilo waanay waxba qabanin jirka bini aadamkaahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaan ku bixinay kuwa wax ciyaara waxaad aragteen kuwa wax ciyaara nin waliba halku ciyaaraa ku weyn waayo uu train gareeyay waa feerka ciyaara qaabka sare waa weyn mijuhu waa wax dhuuban sababtoo waxa weeyaan qaabkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda ciyaara mijaha waa weynaada qaabka sare waa wax dhuuban shaarka marka iska bixiya waa feera yar yar laakiin caquhu waa weyn waa loo train gareeyay يعني قفك بني آدم كان ماشي لا كوبعية قبعة haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aad u fudud bukhaari haddii la qali lahaa maskaxinteeda leeguma ku jirtay kama badnay kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaaya ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa albert einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah يهودي جرملا markii dambana Mareykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weaponkan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxa soo dhamin nadariyaad physics oo leeyahay ka soo burqaday waxay yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaneen waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yiraahdeen sidaradeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeelan aasine walaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qalay iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxa ninkan ku jira ee غير caadiga ah waxay yiraahdeen Einstein waxa loogu tagay malaynaysa qof bini aadam aqligii baa loogu tagay bay yiraahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yiraahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado qofka bini aadamka ah gacantaada mesela haddaad halkaa dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe ku daalaysaa gacantiiba way kabuubiyo haddii lagu yidhaha saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaayo hadhow ku dabqato waayo shaqadaad tagtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca cudwiga haddii la shaqo tiro hawlgab baa ku dhaca hawlgabkusuu ugu dhacaya matalan misaal basiita aniga igu dhacay baraarigoo ka soconaya gaadhi fuusha buu nala qallimay gacan baa ka jabay dabeetana bahallada yaryar ee lafaha gacanta ku jira ayay buray mid ka mid ah jabtay waa la rakibay ilaa halkaa la xidhay 45 casho markay ku xidhnayd baa layga furay jabuuta laygaga furay deetana waxaa la yidhi wala waa ku jaban dib baa haddana lay rakibay yurub baan la tegey 7 maalmood markay igu rakibnayd baa la furay dabeetana waxay dhaheen weli way ku jabanaysaa maalintii yaray weli may rakibnayd laakiin gacantaydii baa halkaa dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay bahashan cad loogu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaasay joogtaa intana waxay igu yidhaahdeen laftan yara jabtay iska illow imika soddon kala ku haysatee gacantan sidaynu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna laftan iska jabnaa wallayma qabtee physiotherapy baa lay diray halkaa dhudhunka iyo muruqaa sare cududa laygu dhegaa waa layga cabaadiyaa 3 cashaan imaadaa xoog baa lay qabtaa waa laygaga cabaadiyaa marka qayliya cabaad baa laysii daayaa waa iskaga tagaa
sidii ay maalinba in yar u kala baxaysay maalinta bay dhaha gacmaha isku dhunanay labadeeda gacmood oo isla yihiin ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsato intii tan laga cabaadinayso waxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin haddii la xidho way hawl gabtaa haddii la xidho saa laga dhigo way hawl gabtaa ishkiladda inay haysataa waxay tahay daaqadii aan layna siiyey awoodeennii ayaynu xidhnaa markaasaa waxaa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in dhulka wax lagu qortaa inay fiican tahay kombiyuutarka iyo waxaana la isticmaalaa inay fiican tahay maskaxdu waa ku dabqaanaysaa ilaahay haddaad dhegaysato cid kale warkii uma baahnid haddaad rabbi dhegaysatid garatid waxa uu sheegayo garaadkaagu uu halkaa gaadho cid kale inay kuu warrantaba uma baahnid sida awgeed baa ilaahay gaaladan wuxuu ku caayey maxay caynkaa u sameeyeen labada aayadoode kale madiinay ku soo degeen aayadda suuratu nisaa ku jirta siyaaqa ay rabbi uu kaga warramayo munaafiqiintay ku dhex jirta ilaahayna wuxuu leeyahy afalaa yatadabbaruuna alqur'aan ay yucriduun falaa yatadabbaruuna alqur'aan miyay jeesanayaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala oo qur-aankaba u fiirsan maayaan miya qur-aanka ma intay dhagaha ka martaan ayay iska dhaafayaan baa ilaahay leeyahy walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira hadduu qur'aankani cid aan rabbi ahayn uu ka iman lahaa isbaraanbarin badan bay dhexdiisa ka heleen wuu isburin lahaa hadalka bini aadamku hadduu muddo socdo oo baabab kale nooca ka warramo uu iska hor yimaadaa ilaahayse wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala aniga hadalkaygu iska hor iman maayo sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu ku canaananayaa istifhaam inkaariya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan uma fiirsanayaan miyay ka jeesanayaan oo uma fiirsanayaan ilaahay kitaabkiisa miya qofkii ilaahay kitaabkiisa u fiirsadaa nolosha oo dhan oo isku qudman buu helayaa hadday akhlaaq tahay hadday caqiida tahay hadday cibaado tahay hadday shareeco tahay hadday dhaqan nolosha oo dhan u wada jeeda oo itijaah qudha leh ayuu soo helayaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay mucjisadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanku waa laba shay bay culammadu yidhaahdaan waana risaala waana mucjisa waa risaaladii rabbi soo diray iyo risaaladaa wixii caddaynayana waa isla qur-aanka isagaa labadaba ku filan isagaa warkiina ah caddayntiina ah baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala sidaa awgeed baa ilahay wuxuu leeyay walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira aayadda afraad suuratu muxamed bay iyana ku jirtaa iyana waa aayad madaniya siyaaqa munaafiqiinta lagaga warramaya ilaahay ka warramaya ayay ku jirtaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha miyaanay qur'aanka kan dhuganayn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala am calaa quluubin bal calaa quluubin aqfaaluha baa ilahay yidhi qalbiyadooda qafille ku rakiban yihin waa dad qafilan low qalbigu uu maftuux yahay ama mutafatix yahay waxaa geli lahaa waanada rabbiya wax sheegiisa sida daraaddeed ayuha alaxibba haddii lagu canaantay munaafiqiin iyo kufaar maxaa qur-aanka u fahmi weyday muslimka maxaad u malaynaysaa isaga markaa yacni qofka muslimka ahi inuu qur-aanka fahmaa waa waxyaabaha ugu horreeya ee laga rabo waxaana laynooga baahan yahay markaas qur-aanku wuu fudud yahay in la fahmaa ma adka walaqad yasarna alqur'aana lidikr fahal min mudakir ilaahay wuxuu leeyahy qur-aanka in lagu waantoobo la garto istimbaadaadka daqiiqa ee culammada u gaarkii ha dambeeyo ilaahay khalqigoo dhan buu la hadlayaa mid caqli weyn iyo mid caqli yar wuxuu abuurtay oo dhankanba uu risaalada idan qof waliba wuu fahmayaa haddaad luqada aan wax ka garatid dadka badh baa u haysta qur-aanka in la barto marka la qalinjabiye culumta oo dhan la soo dhigto maya qur-aanku ma munaafiq baad ka liidataa ilaahay wuxuu leeyahy munaafiqu hadduu akhriyo garto wuu ku caqliyaysan lahaa magaal baad ka liitaa mushrikii carbeed baa ilaahay leeyahay falam yatadabbaru lqur'aan
qof kastoo muslima waa loogu talagalay markaa inuu qur-aanka ka fahmo inuu kitaabka fahmo waxay culammadu yidhaahdaan markaa khitaabka kani waa linnaasi jamiican muslimka isaga waxa uu sii gaaroo lagu yidhi low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قرآن كان هدام كسود دجين لها إلهي إلهي بور وعقل لصين لها بورتا وهو قان سمي لهي ده وحيوه قان سمي لهي وركيسة دبتنا إلهي عبسدي سدرادد ودلدلاع إلهي با إلهي إلهي كتب إلهي وحلو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كسوة تصاليان أدتك وياليو حل وياليا لعلهم يتفكرون قرآن كأفرتن تصالي أما أفرتن يلا ميلود بسالة كساروري أفرتن يلا بدا ميلود ربي وينو ما هي تصالي من كلو سور دوين يوم مسائل كعقلك إن بدروا كم إذا مسائل حسية الله قلت الماميو يا ربي سبحانه وتعالى إنه تلماميا وحانا اللي يدي وحالوريا ليسدة للناس أتقول كم يتكبح صنطي الناس هو جميعا كافرهم ومؤمنهم ومنافقهم مد والبس قدر تضعوا تنفانوا يا ليبا إلى هيدي وحين مدنيهين إن يفكراني فدبا أيها الأحبة تدبر كأنه شيئا وحين علماء إلى هذا ما ددوا أدانا نفع عربي هذا وحبا يدين بضبضين وشيء عواقبتي سيئة وحكوك بقبوبة إيو لا فرصده وأن نظر في عواقب الأمور وما تقول إليه بين هذا ودائما الله يشو الرموه وحيكوك بقبوبة يعني هلك حقيقة تجس اصطلاحها أنك مفهوقة سيعلمات كل شيئان وحيد هذا وتأمل القرآن بقصد الاتعاذ والاعتبار والاستبصار وقرآن كل دكتور الله فرصده الله دايموده دنت لقل يدوين وحلقو قاطه ولقو وياركو ولقو قراد يشو وحجرته مقاصد ووينو دين تبو سودكتي إلهي كلمة سين لغو بره مخلوقاتك يضعف قوضين لغو بره دون دي اللي يدشده لغو بره آخرة iyo weynideeda in lagu baro jannada iyo naarta iyo faraqa u dhaxeeyaan lagu baro qiyaamaha iyo kontonka sanadood la taagan yahay mawaaqiftiisa kala gadisan inaad ogaatid nolosha iyo dhadhanka ay leedahay in lagu baro xuska rabbi iyo weynidiisa in lagu baro xumaha iyo ka dheeraantiisa in lagu baro samaha iyo qalbigu siduu ugu xasilay in lagu baro idan كما ورمينا استنباطات الفقهية الدقيقة كما ورمينا هذه للعلماء لكن وحنك ورمينا مسألة الاتعاذ والاعتبار والاستبصار إن القرآن كواخرده إن كوان توليد ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سوقت ما إلهي وحط المامي النتيجة التدبر كاسين كانتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين day dhageystaan baa rabbi yidhi wixii nebiga lagu soo dejiyey waxaad arkaysaa indhahooda ilmadu dareeraysa xaqa ay garteen daraaddeed iyagoo le rabbo waa ku rumaynay ee nagu dar oo nagu qor inta shaahidiinta ah allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب قرآن كوحين وقلت المام يا مركه انت فهمت دقيقه sidoo noqdo hadii quraanka aad u fiirsato ku tadabburto macnihiisu ku dhaco natiijadani waa laabud in la gaaro inaad ilmaysaa waa laabud in jirku ku dubaaxiya waa laabud in ilaahay dhikrigiisa qalbigaagu ku xasila waa laabud inaad rabbi ka cabsootaa waa laabud iimaan inuu ku kordho waa qasab
rabbi inaad tala saarato kalsooni isaga ku qabto makhluuq oo dhan aad ka tagtaa waa qur-aanka waxa ku cad waa aahaarta ka ratibanta dib baynu ugu noqone marka tadabbarku yimaado